bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kulanti waxaan oo wanaagsan dhammaanba akhyaartana dhagaysanaysay kusoo dhowaada kormeerka wararkooda alaaba ka dhagaysataan dhexnimo midiya waa maalinnimaha jimcaha 29 rabadaan 22 bisha shanaad 2020 qodobada ugu waaweyn toddobaadkana waxaa ka mid ah dad qaba cudurka covid-19 oo lagu arkay xerada qaxoontiga ee Dadaab Itoobiya oo gantaalada lidka diyaaradaha Hargeysa ee gaarka biyo xidheenka webiga Niil waxaa ka soo baxay kulankii golaha ammaanka ee Soomaaliya hubka Mareykanku ka iibinaya Taiwan oo ka cadhaysiiyay Shiinaha Mareykanka oo shaaca ka qaaday inuu ka baxayo heshiiska uu hore u galay qodobadaasi waa kuwa ugu waaweyn haatan iyagii oo faahfaahsan ruuxa ku nool xerada qaxoontiga ee Dadaab ee dalkaasi Kenya ayaa laga helay cudurka COVID-19 sida uu shaaciyay sarkaal ka tirsan hay'adda qaxoontiga adduunka waxaa jirta cabsi laga qabo inuu cudurka COVID-19 ku sii faafo gudaha xerada Dadaab ee dalkaasi Kenya sidoo kalena hay'adda ayaa welwel ka muujisay dad ka badan 320,000 oo ruux oo ku nool meelaha ku dhow xerada qaxoontiga Dadaab hase yeeshee ilaa iyo hadda ayaan laga soo sheegin cudurka COVID-19 xerada qaxoontiga ee Kakuba taasoo ay ku nool yihiin dad ka badan 196,000 oo qaxoonti ah labada ruux ee laga helay cudurka ayaa la geeyay xarunta lagu karantiilo xarun lagu karantiilo xaaladuna waa wanaagsan tahay sida ay sheegtay Fojo Bayne oo ahaa afhayeenka UNHCR dalka Kenya ayaa dadku u soo ritaa cudurka COVID-19 si maalinle ah taasoo sare u sii kacaysa iyadoo cudurkuna uu ku faafayo gobolada badan oo ka mid ah isla dalkaasi Kenya xiisada u dhaxaysa Masar iyo Itoobiya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay cirka isku shareertay kadib markii dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqday inaysan dib u dhigi doonin buuxinta biyo xidheenka weyn ee ay ka samaysatay webiga Niil madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaana amar ku siiyay ciidamada qalabka sida ee Masar inay galaan feejignaantii ugu sarreysay abad sidoo kalena dawladda Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay gantaalada lidka diyaaradaha u daabushay agagaarka biyo xidheenka si ay isaga difaacdo haddii Masar ay soo weerarto biyo xidheenka wadahadaladii u dhaxeeyay Masar iyo Itoobiya ee ku saabsanaa biyo xidheenka laga dhisayo webiga Blue Nile ayaa burburay bishii Maarch kadib markii dawladda Itoobiya ay diiday inay saxeexdo heshiis uu Mareykanku soo agaasimay oo xukumayay biyo xidheenka iyadoo ay sheegtay inay xaq u leedahay inay buuxiso biyo xidheenka xawaare u gaar ah Masar iyo Suudaan ayaana si xoogan uga soo horjeestay qorshaha Itoobiya ee iskeed biyo xidheenka u buuxsanaysa iyadoo aan wax heshiis la gaadhin xukuumadda Qaahira ayaana ka warwarsan inuu hoos u dhaco biyaha webiga Niil taasoo sababi karta abaaro iyo macaluul maadaama dadka Masar badi ay ku tiirsan yihiin biyaha webiga Niilka sihayaha afhayeenka wasaaradda arrimaha Itoobiya ama Tasasu oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dawladda ayaa sheegay inaysan waajib ku ahayn inay ogeysiiso Masar iyo Suudaan waqtiga biyo xidheenka la buuxinayo Itoobiya ayaa qorsheynaysa inay bilowdo buuxinta biyo xidheenka bisha Juulaay ee soo socota waxaana wasiirka arrimaha dibadda Gedo Andaraajo uu u sheegay dalka in aanu arkin sabab uu dib ugu dhigo buuxinta biyo xidheenka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khudbad ka dhageystay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ergeyga midowga Afrika François Madeira kuwaas oo ka hadlay horumarka laga sameeyay ansixinta sharciga doorashooyinka iyo ka howlgalida ciidamada shabeellaha hoose iyo qabashada magaalada Janaale xubnaha golaha ammaanka oo markaasi ka mid u hadlay ayaa soo dhaweeyay horumaradaas dhinaca kalena golaha ammaanka ayaa ugu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadlaan dawladda Mareykanka sarkaal u hadlayay ayaana ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qabto kulan golaha ammaanka qaranka oo ay ku wada jiraan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa sidoo kalena xubin ka mid ah golaha ammaanka uu ka hadlay inay ka walaacsan yihiin ciidamada amniga ee meelaha qaarkood sida gada loo isticmaalo xifaaltan siyaasadeed ergeyga qaramada midoobay James Swan iyo madaxda kale oo ka hadashay waxay sidoo kalena soo dhaweeyeen kulankii Addis Ababa ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi dawladda Mareykanka ayaa Congress-ka ku wargelisay in suurtagalnimada Taiwan ka iibinaysa gantaalada biyaha hoostooda ku safro kuwaas oo ku kacay $180 bilyan taasoo sii xumeynaysa xiriirka Washington iyo Beijing dawladda Mareykanka oo si la mid ah inta badan dalalka caalamka wax xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah lama laha Taiwan hase yeeshee waxaa jira sharci ku qasbaya inay ka iibiso hub ay isku difaacdo Taiwan
waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waa ansixiyay hubka gantaalada ADMK 48 bursigis ee maraakiibta badda lagu rido oo casri ah kuwaasoo ku kacaya $180 milyan sida ay sheegtay hay'adda iskaashiga difaaca amniga Mareykanka oo bayaan soo saartay. Hay'adda ayaana sheegtay in hubkani u adeegaya danta qaran, amni iyo dhaqaale ee Mareykanka, isla markaana ay ku wargelisay Koongareeska. Afhayeenka u hadlayay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhao Lijian ayaa sheegay in Shiinuhu ashkata rasmi ah oo arrintaasi ka dhan ah u gudbin doono Washington. Zhao ayaana intaasi ku daray in Shiinuhu uu ku boorinayo dowladda Mareykanka inay joojiso dhammaanba hubka ay ka iibinayso xiriirka militari ee ay la leedahay Taiwan, isla looga hortago dhaawac kale oo gaadha xiriirka labada dal. Taiwan ayaana sheegtay inay tahay dal madax bannaan, halka Shiinuhuna uu arko inuu yahay gobol ka tirsan isla dalkaasi Shiinaha. Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu ka baxay heshiiskii muhiimka ah ee oggolaanaya diyaaradaha aan hubaysnayn inay hawada wadamada heshiiska saxeexay ay si xor ah u dul maraan. Heshiiskaasoo loo yaqaano Open Sky Trust. Heshiiskan oo 2002 hirgalay ayaa loo diyaariyay si wadamada saxeexay dhexdooda loogu abuuro kalsooni ah inay hawada iska soo weerarin. Mas'uuliyiin sare oo dowladda Mareykanka ka tirsan waxa ay sheegeen in dalkiisu uu heshiiskaasi uga baxayo maadaama uu Ruushku marar badan ku xadgudbay heshiiskaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu isna sheegay in la joogo fursaddii ugu wanaagsanayd oo heshiiska cusub lala geli lahaa Ruushka, waxaana uu maleynayaa in xiriirka wanaagsan ee la lahayn Ruushka, balse Ruushku ma noqon mid heshiiskaasi u hoggaansama ilaa iyo heshiiskaasi dib dhab ah uga hoggaansamaana. Heshiiskaasi waxa ka baxayna ayuu yiri madaxweynaha Trump oo la hadlayay warbaahinta. Mas'uuliyiin ka tirsan Mareykanka ayaana sheegay in Washington heshiiskii 6 bilood gudahood kaga bixi doonto 35 dal oo ay ka mid yihiin dalalka Ruushka, Canada, Britain iyo heshiiskaasi qayb ka ah. Waa hagaag dhageystayaal daawadayaal, intaa waxaan ku soo koobaynaa kormeerka wararka intaynu kan kulamida ku kulmi doono. Waa anigoo Dalmar oo idinkaga tagaya sidaa